بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين nin dhalinyarada masaajidka ka mid ah ayaa markasta waxa weeye salaada iyo soo aada salaada uu ku dadaalaa aad buu ugu dadaalaa laakiin hal dhib buu leeyahay wuu soo daahaa anigu marka dhowr jeer baan arkay marka masaajid ka soo baxno ama masaajidka dibadda aanu taagannahay ayaa waxaan arkaa asagoo soo galaya mar meesha weysadu ka soo baxa asagoo weysadu ka qoyan tahay marna waxa weeye asagoo rakacadii ugu dambeys tukanayo waan isbaranay kor baan iska salaanaa maalintii dambe si fiican baan isku baranay waxaan ku yiri war haade nin wanaagsan baa tahay oo nin fiican baa tahay laakiin soo dadaal oo waxa weeye salaada hor u imow waana xoogaa wacdiyey sheekhu wuxuu nin dhanyara ahay oo waxa weeye xoogsada oo waxa weeye dadna ku xiran yihiin qaraabo iyo dad kale waxaan ku soo daahaa arrinka laakiin ii duceey waxaan ku yiri waan kuu duceyn adiguna dadaalka aad u badi hayuu yiri sheekh wax dhibaato ah ma laha ninkii uu dadaalaa mar markuu waxa weeye laba rakac kaliya ka tagto uu yimaado wuxuu yiraahdaa sheekhu maanta laba rakac kaliya iga tagto waa soo gaaray jamaacadii mar hadduu waxa weeye adaanka yimaado waqtigiisa wuxuu yiraahdaa sheekh maanta xataa adaankii baa hadda socdaayo waa ika maalintii dambe ninkii waa ii yimid dhalinyarada ahaa isaga oo xooga murugo ay ka muuqato murugsan wejigiisa aan ka gartaano dad kale la taagan ayaan waxaan arkay ninkii wejigiisa xoogaa aan ficnaan waxaan ku yiri maxaa kugu dhacay xaaladdu sidee noqotay maxaa dhacay wuxuu sheekhu xaalad baa ii haysato arrin waxa ii haysta aad waxa weeye khatar u ah waxaan arrintu maxay tahay wuxuu yiri gabar baanu heshiinay gabadha xoogaa baa wada soconay buu yiri maanta waan wada heshiinay caawo inay faaxishadu naga dhacdo hotel aan iskugu tagno waxba waxa weeye wax kasta waan dhammaynay maxaa dhacay baan ku yiri wuxuu sheekhu qalbigayga hadda idiiday yacni qalbiga isiin la qalbigiiba aad ii ruxmay salaadii baan tukaday waxa weeye arrinkaa waa igu soo dhici la'yahay wax kastan gabadhii waa isoo wacaysaa sheekhu ii ducay maxaan sameeyaa waan la hadlay waan waaniyey waxaan ku yiri ladatu saacad raaxadeed ma waxaa uga tegaysaa adduunyada khayrka iyo nicmada alle subxaana wa tacaala uu ku siiyey saacad keliya ama dhowrkaa daqiiqo aad raaxaysanayso aad u moodo inaad raaxaysanayso ayaa ku hoojinayo waana hoogi fi dunya waalaakhira zinadu waa dembi aad u weyn ilaahay subxana wa tacala dhammaanteed ha naga qabto calaa kulli xaal ninkii waan waaniyey marka uu ila hadlayo jirkiisa waa jaraynayaa waana waxa weeye aad buu uga murugsan yahay arrinka wuuna ilmaynayaa sheekhu ii duceey buu yiri ilaahay inuu qalbiga ka saaro waa uu duceey waxaan ku yiri dadaal go'aanka adiga iska leh shaydaanka iska celi wuu iga tagay ninkii maalin kadib buu haddana ii yimi sheekhu wuxuu yiri arrinkii qalbigayga ilaahay waa ka saaray mar dambe waxa weeye uma noqon gabadhiina nambarkeedii delete iyo waxa weeye blog ayaan isla saaray mar dambeba waxa weeye kuma noqon xaggaas ayaa igu dambeysay yiri الحمد لله إلهي بما هاد إسكاله نينكا وحلوية دنيرة وحاسودن وحوي أرنكا وانو كاستاجيبو إيري سوما قرن الحمد لله أنا وحان إيري مركا نينكا دنيرة كفكري إلهي وحيري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة قفك وحكرت حمانت فحشاء فحشي الزنا ذا وحيابهم iyo munkarka ka reebta ninka nin dhalinyaro salaada ooga ayaan ku ogaa ha soo daaho mar haka waxa weeye jamaacadaha ka soo daaho ha dadaalo laakiin nin dhalinyaro dadaalayo oo ilaahay dartii u tukanayo saas ayaanu rajaynaynaa haddii ilaahay isku xirto oo salaadaada ay noqoto salaad run ah ilaahay subxaana wa tacaala xumaanta waa kaa ilaalin xantu kaa ilaalin balaayadu kaa ilaalin dunuubta waaweyn iyo kabaa'irtu alle subxaana wa tacaala kaa ilaalin marka sidaa daraaddeed walaalayaal salaadeena aan wanaajino salaada waa xiriirka aad la leedahay alle subxaana wa tacaala xiriirka ilaali ilaahay subxaana wa tacaala hana barkeeyo dhammaan allahna xifdiyo dhammaanteen annaga iyo caruurteena iyo walaalaheen iyo dhammaan allahna xifdiyo gabdhaheena allaha xifdiyo dhallinyaradeen allaha xifdiyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh